بش اللباد كونية تطبيق طبعا سيدي بش اللباد كونية تطبيق طبعا وحدا موبين هبتاك الشعبك الصومالية مقدر يعني بدنا قبل ما هركي جرين مدحوينها يدد ربان كنت هلكن waxaan uga macdalnay xildhibaanadii go'aanka qaatay inay u soo saaraan cid ay dadku rabto Sakariya Maxamuud Xaaji xildhibaan Sakariya Maxamuud Xaaji oo ku caana Sakariya Xaaji sanadaha hore oo mutaqaacida waxa xaga ka xiga xigeenkii ama ra'iisul wasaare xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi waxaan doonayaa in eray kooban siiyo waxaan ku horeysiinayaa Sakariya ku horeysiinayaa xildhibaan Sakariya Xaaji وأن دون يقبل ما نتي وجه رئيسي واكي وحكم بدها مشرحين تلو كم بدها مشرحين تم مدحوينها يسوع شرحين سجدا مدحوينه قريب وهالك كيري وحانوا للتاريخ وحدونا بالله ويركلوا للتاريخ إنه ما أنت قصون كلمة هذه أدبا ما سنتهاي وراء الأردن هذو بأهلية سوماليات باتهاي هذه سومالي وناكل هذا مالن تصبح يا هيد مالن عجيبة يا هيد ونهانتي مالن هم الصوماليات تاريخ ذا كشيبة يا هيد للتاريخ نوحنا ونجي إن الدكتور مدحوينه وناكسن وذلك وقامن كره إسلام مركز العدو بدلك هيستو سنة يلا بعد سنة جواب سنة وهو بدن شيء عدو لكن الصومالي ويراعي له شقيا من يعني فيه وتوش كوي فيه ويراعي وكا سوي دونها جديدة وين دعدي waxaan nasiiboonaga waxaan maleenayaa waa markii ugu horeysay Soomaali weyn meel kasta ay joogto yaa dadku filasho dheer oo balaaran bay fisheen in filashadaas shaqadeedii dawladdu qabato oo ay u dhawowdo filashadaas wax badan baan u soo joogay filasho badan oo ummadda Soomaaliyeed ka filato aysan dawladdu fulin sidii harta ka warqabay sidii xaakimkii aad baa loogu wada farxay laakiin lama fulin filashadii dadku وحي دتكو ربين وملينيين إني هليا لما كان هليا الصوماليين وحي دونيا إني هلا وكفرنا يا دولة نبضة كم ذا مدح بنانا ذا كم ذا قبني ماذا كم ذا قبكها كم ذا إنه صار نقطة ويلي يروح هبعد له وتكريع إنه أمد الصومالي سنة يلا تنسى وبحوية اليوم يا ويسكب بلا شيء مرنا وقاس قبر الشيخ قبري وحن ولي عرقنا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا ويانا أحمد قريش عبد الله حسن وكوي الله تنسى استعمار كل الدرجة وأحمد قريش حاول شيء جميل ما كل إيش الله يبارك عليه كويس ناس عندي علي بدأ عندنا وكذبا كذبا عن وياش هي أول برة يتوري يورد كل هني ما أنت بينو بحكر أنا وقرية هاي سنة وقرية كويلة تنتجو وارمات أو شاس دولة كرم نايرة لما يسوق ما مولد الشرة هي دولة بينك عم تسقف سلام صومال لو وده هذا طبعا اللي لقله الشباب كإن وده هذا اللي لقله ومد الصومالية أي جد نقطة حبته من يسمع أنت وينتهى فكرة ما وده هذا الكاب حوي وطي وحكوها جاية هذا يضمن سنتك كاسوحها الحلبان سكرية محمود حاتي كلي أنا ورانيا أيه إذا كلي أنا ورانيا حوي isbedelad ku dhacay dhacay jir kii ma kii waraan waa uga daraan waa ka reeya bilbata la hadii aan waqti dheer kaga soo qabano markii Afrika la gumaysanayay ka hor waxa jiray slave trade waxa la yiraahdo slave trade kii gumaysiga gooyay labada waa laakiin gumaysiga gooyay oo maxay gumaysiga waxa arkay qaarada hadii dadka laga mariyo slave trade buu sii socdo dadka laga mariyo yaa lagu shaqaysanaya go waxaa timi markaa hormada waxay ku timi ilaahay keenay uu ka dhigay dadkii gumaysan jiray dagaalkii labaad laga yaabay la raadinaya aan weli xoroobin ay yartahay inay dhacday ma laga yaabo Soomaalida ku soo noqon iyo bashaar ku dhacay anigu tani intii shirkii cadda hawaan qabay waxaan ugu sanqanaa Ismaaciil Umar Geela soo saaray bulshada rayidka awooddeeda intii bulshada rayidka awooddeeda ay soo baxday waliga rajan qabay marwax waxyaagaya laakiin taadaan ii sheego maanta ma hawaysanay maanta waxay muuqatay lacag badan oo bashaqaynaysa kii lacag badan oo bashaqaynay mooyaane furdadaas bulshada rayidka maanta waxa dhalinaysa ma lahayn hawadeeda ma qabin laakiin way dhalisay bulshada rayidka sidoo hadda sakay sheegay yani
ما فيها أنا هذا عبد الله ما جاي له العقد بحشي هو هيبة لكن هو العقد بدأ بحيك هو العقد زي ما ترضي وحسب ترك يعني وحوي برشلة هذا ما تقدر هذا ما حسنت على الديوان عن ديكور رمي محل كمدها يعني قرب غير كمدة المشرحين تسبدل دونكا يوافقوا دكوا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وان كاغا محمد يا أنطور يوتيوبي سرونتي يصدر وحنو أركا سيدا أي قضياشي هربا شاقان دي أهل مالين تاريخي بيحيد أي دعدي إن المدة الصوماليين أي موجستو dareenkeedii iyo runtii muxuu ahaa doonideedii waxaana aan oran karaa xildhibaanadu waxay ka tarjumayeen baaqii shacabku ay u soo dirayeen iyo communicationkii xiriirkii ay shacabku la soo sameynayeen waxaan qabaa iyadoo dareenka shacabku aad u kacsan yahay waxyaabaha ay rajaynayaan ay tabarucayaan ay aad iyo aad u badan tahay annaguna runtii aanu ahayn dadkii aniga iyo Sakariye iyo ragga muxuu ahaa lamidka ka soo shaqeeyay isbeddelkaasi waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin ka mahadnaqaynaa laakiin waxaan u baahanahay dulqaad iyo sabir maalin iyo laba iyo bil iyo saddex iyo afar bilood midna waxa laga yaabaa waxyaabaad rajaynaysan inaanay ku qabsoomin inaanay ku dhicin laakiin waxaanu ilaahay idinkii aan isleeyahay ballanqaadkii madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo ragga markaas isbedel doonka ay sameeyeen waxaan dhammaanteen ka wada shaqayn doonaa inuu xaqiiqoodo oo si dhab u dhaco aad bay u badan yihiin caqabadka hortaagan waxaana hortaagan arrimo la xiriira arrimaha dibadda oo ogsoonahay oo dalkan waxaa degan xurumo shisheeyo kala duwan xurun kaliya maaha xurumo shisheeyo kala duwan oo qoloba interes leedahay oo qoloba ay baahi leedahay oo qoloba ay wax doonaysa ayaa isugu yimid laakiin waxa ka xoog badan ummadda Soomaaliyeed oo dhulkan iyo dalkan iyo hawadan iyo ciidan iska leh waxa iyagu doonayaan leadershipku hagi lahaa ee arrinta xaqiiqi lahaa baa loo baahan waxyaabaha caqabadka jiray ogsoonahay waxa ka mid ah Soomaalidu maanta way kala qoqoban tahay laakiin hadday hoggaan fiican oo cadaalad ah oo xaq ah runtii ay isku timaado waxaan aaminsanahay iyada lafteeda in arrintaas wax laga qaban karo ay suulayso caqabadka taagan waa ka mid ah oo ay ogsoonahay dhaqaalaha iyo burburka iyo dhibaatada dhacday waxaan qabaa haddaynu ilaahay ku kalsoonano subxaanahu wa tacaala iskuna tashanno iyada lafteeda waa laga baxaya arrintaas waxaan qabaa inay sii socoto oo aan laga harin ummadda Soomaaliyeed oo dhan inta ay ka qayb qaadato ay dhammaanteen ay isugu nimaado waxaan aaminsanahay ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashanaya kalsoon inay ku midowno oo isugu nimaadno oo isu bahaysano arrintaynu ka shaqeyno borosaskii la mari lahaa waa laga hadlay arrinta Somaliland iyo Soomaaliya waa borosaska waxaa muhiimsan in laga wada dhaliyo iyadoo la qaadayo dariiqa saxda ah oo ay dadkaasi ku soo noqdaan isku imaan karaan haddii arrintaasi la muxuu ahaa il duufo waxaan aaminsanahay inay noqonayso wax aan ka hagaagin ummadda Soomaaliyeed waa maalmaha wanaagsan ee shacabkuna waxaan leeyahay uu nool ayanta dawladdu waxaa la cadiray dadka Soomaaliyeed inaan dhibanayn nool yihiin marka nolosha anbaqaadkeedii baa inoo bilaabmay gacmaha inuu isqabsanayna ilaahay idinkii wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعبي علي شعب على كربا قوش انت كم يدمان تاجردي نشوف كذا أي قوش كله مستر مسا يدعى لينا.